bismillaahi raxmaani raxiim. 8 calaamadood oo tilmaan u ah in aad baaritaan dhakhtar u baahan tahay. qodobka koowaad, kalarka cidiyaha waxa ay tilmaamaan wax badan, laakiin qodobka koowaad, haddii ay cidiyahaadu noqdaan kuwo cadaan ah ama cadaan xigeen ah, waxa ay muujinaysaa ama ay muujinayaan in dhiigga jirkaaga ku jiro uu yar yahay. 2, kalarka cidiyahaada haddii uu jaalo noqdo ama jaalo xigeen, waxa ay muujinayaan in beerka ay ka jirto cilad ama infection. gaar ahaan waxaa loo badinayaa inuu jirkaaga ku jiro infectionka jaundice-ka ama cagaaryaha. Lambar 3, haddii cidiyahaada ay yeelato barbaraha cadcadka ah, waxa ay muujinaysaa in macdanta jirkaaga ku jirto ay aad u yar tahay, gaar ahaan iodine-ta iyo kobarta. qodobka 4, indhahaada haddii ay jaalo u muuqdaan, waxa ay la macno tahay ama waxa ay muujinaysaa sida cidiyihii jaalaha ahaa oo kale in ay beerka cilad ka jirto, gaar ahaan maadada cagaaryaha jaundice-ka ama infectionka beerka ku dhaca. Lambar 5, timahaaga oo daata. timaha oo daata inta badan waxa ay muujinayaan nafaqo daro, gaar ahaan timaha iyo cidiyaha iyo maqaarka. waxaa lagu ogaadaa qofka nafaqadiisa in ay wanaagsan tahay iyo inay yar tahay. qodobka 6, sidoo kale indhaha haddii ay cadaan noqdaan ama ay muuqdaan cadaan ama beyl, waa calaamad dhiig la'aan ee ka jirta jirka bini'aadanka. inta badan qofkeena markii dhakhtar la geeyo waxaa laga fiiriyaa cidiyaha ama indhaha. qodobka 7, kaadida oo xaddigeeda yaraato kuna gubto waa calaamada infectionka kaadi heysta ama kaadi mareenka. qodobka 8, haddii aad isku aragto oon badan ama kaadi badan, waa calaamadaha ugu halista badan haddii aad habeenkii isku aragto, waayo waxa ay muujinayaan in sokorta dhiigaaga ay kacsan tahay.